afhayeenka beesha harti cabdikariin cali nuur oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa sheegay inaanay matali karin cid waliba oo ku hadli karin afka beesha. Dhanka kale afhayeenka ayaa saxaafadda u akhriyay qodobo ka soo baxay shir lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. afhayeenka ayaa mahad celin iyo bogaadin u diray maamulka Puntland isagoo sheegay inay maamulka Puntland u taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed. waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dhamaantiin iyo caalamkaba bacda salaan waxa shirar isdaba jooga oo xiriira bilihii aynu soo dhaafnay uga socday beesha harti qaybo kamid ah dalka dibadiisa iyo gudihiisa labadaba iyadoo ay beeshu ka shiraysay kana arinsanaysay hawlaha mustaqbalkooda kuwa siyaasadeed kuwa nabadgelyo iyo hadii beedankeeda leeyahay kuwa qabiil ahaanba beesha waxgaradkeeda isimadeeda siyaasiyiinteeda bulshada rayidka ah iyo dhammaan waxgaradkeedu shirar ay isugu yimaadeen dalka iyo dibadiisa ayay waxay ka soo saareen go'aamada tan hoos ku qoran kuwaas aan runtii saxaafadda inaan u badhigleelan wadaagno beeshu waxay go'aansatay oo soo saartay qodobka koowaad ay tahay siyaasadeedu ay ka mid tahay maamul goboleedka Puntland siyaasadeedana ay u matali karto cid dawladda Puntland iyo mas'uuliyiinta iyo siyaasadda ugu jirta dawladda federaalka beeshu ma aqbalayso waxayna ka soo horjeedaa cid kasta oo siyaasadeeda iyo magaceeda ku been abuurata waxayna go'aamo ka soo saartay shirar ka socda Hargeysa oo lagaga been abuuranayo beesha waxyaalo ayaan beeshu ahayn ama cid aan maandheedu haysan afkeeda ku hadlaysa beeshu waxay u cadeynaysaa dawladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inaan maamulka SNM uusan ku meteli karin wax wada hadal dal iyo dibatoona dawladda federaalka aan kala hadli karin adduun weynahana kala hadli karin sheegana karin wax ka dhaxeeyana ayan u tuweynay Puntland beeshu waxa ay go'aan ka soo saartay dadka beesha harti kamid ah la shaqaysanaya maamulka SNM siyaasadii lagu dhiqi lahaa ayay hoosta ka xariiqday taasoo ah dadka beesha ka tirsan la shaqaysanaya maamulka cadawga ah ee SNM inay yihiin boqolkiiba 95 ay dad ay duruuf iyo baahi u geysay inay dad wax qadiyada aaminsan isla markaana beeshu waxay hoosta ka xariiqsatay oo go'aansatay dadkaas maadaama ay siyaasadda cadawga ay duruuf u geysay iyo baahi in baahidooda wax laga qabto loona ururiyo sakada sanadka si ay uga tanaasulaan cadawga ay la shaqaysanayaan oo ay u helaan waxay ku noolaadaan waxa ay kaloo beeshu isla qaadatay marka ay inta duruuftu u geysay maamulka SNM ay u samayso hanti ay kaga maarmaan gacanta cadawga ee loogu soo adeegsanayo tolka sida isla markaana ay u ururiyaan sakada sanadka si ay hawlahooda iyo duruufahooda ugu xallistaan inay inta ka soo hadhayna ay u sameyn doonaan dhaqan celin qodobka labaad beeshu waxay cadeynaysaa in ayaan jirin wax xada oo kala dhaxmara beesha harti mid Talyaani dhigay iyo mid Ingiriis dhigay toona beesha harti ay isku tahay beel isku dala isku degaana wax xada iyo wax xuduuda oo ay ama gumaysta dhigay ama cid kale dhigtay ama lagu toojar gareyn karaana ayaan jirin wax dalo ay kala leedahay jirin xadka dhaxmaraana uusan jirin sidaas darteedna ayaan cidina ku hindisoon ama ayaan ku hadlin xad baanu soo xidhanaa iyo cagaf baa meel la mariyay iyo Ingiriis baa wax gumaysan jiray midna beeshu waxay u mahad celinaysaa jaaliyada goboladaas ee xoreynta iyo xaaladda socota ee aad ula garab taagan dib u xoreynta wadanka iyo soo celinta deegaankoodii iyo sharaftoodii urba joogta jaaliyada xoreynta iyo xaaladda ayay si mug iyo miisaan ugu mahad celinaysaa hawlaha ay ku jiraan
uguna boorinaysa inay hawlahooda sii dardargeliyaan kuna midowdo jaaliyadu dhammaanteed golaha xoreynta iyo xaaladda ee u taagan soo celinta deegaanka iyo sharafta ummadda. beeshu waxay eedaynaysaa shir ka dhacay Addis Ababa bilihii aynu soo dhaafnay. shirkaas oo ahaa shir xasaradeed laguna kala geynayo ummadda Soomaaliyeed, taas oo ay ka shaqeynayeen dad Hargeysa ka tegay oo siyaasiyiin iyo dhaqanba leh oo ay ummadda Soomaaliyeed dhib iyo dhibaato kaga aruurayeen sida ummadda kiilka degan ee Soomaaliyeed oo Mustafa Cagjar madaxweynaha u yahay, walaaltinimo iyo Soomaalinimo iyo sharafna ku wada nool, taasoo khalkhal lagu abuurayay laguna kala geynayay dhibaato iyo haddii ay xasaradna la iskaga abuurayay. shirka Addis Ababa ka dhacay ayay beeshu aad u eedaynaysaa. waxayna ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaysaa kuwa NFD degan iyo kuwa kiilka degan iyo kuwa Soomaaliya degan intuu ummadda Soomaaliyeed inay tahay dad isku hela, isku dhiiga, isku dhaqana, midnimadoodana ay xijistaan, ilaalistaana, cid allaale ciddii fidmo kula jirtaana ay gacan bir iskaga qabtaan. beeshu waxay baaq u diraysaa beesha Isaaq oo ilaa iyo 60kii ku hawlanayd inay abtirsiinyaheeda sanadba bedesho iyada oo uga jeeda xasarad iyo in ummad Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo qabiil, iyagoo 60kii sheegtay inay yihiin beesha Iriir oo ugula tegay beesha Hawiye, taasna ay waxba ka socon waayeen. 1991kiina ay sheegteen inay yihiin Yuhuud oo ay u direen Israa'iil ay u direen fariin Israa'iil ay Yuhuuduna ay u soo jawaabtay oo ay tiri anaga wax Afrika wax idin nagama joogto, arrinta ay ku dafirtay. iminkana ay Soomaalinimadii ka gacan taagteen oo ay Addis Ababa u tageen qaabay Soomaaliya u dhibaateeyaan oo magacyo aan jirin ay u sheeganayaan, taasna aynu haddii ay wax natiijo uga gaadhin. beeshu waxay beesha Isaaq u diraysaa fariinta ah inay ummadda Soomaaliyeed isku mid tahay, dad isku dhaqana, isku dhiiga, isku diina, ee ay iska dayso orodkan iyo qaabka kan ay hadda meel ugu guurayso iyo xasaradda ummadda Soomaaliyeed ay ka dhex abuurayso. beeshu waxay mar labaad ku celinaysaa inay dawladda federaalka ahi ayan kala hadli karin beesha Dhulbahante iyo Warsangeli ee Harti ee gobolada degta Sool, Sanaag iyo Cayn, Maaqar iyo Taleex, inayan kala hadli karin maamulka SNM mustaqbalkooda, wakiil aanay ka ahayn, ayana sheegan karin haddii ay maamulka SNM ay Soomaaliya la heshiinayaan oo kunteedarkii ay isku xidheen 1990kii laga soo jebinayo way soo dhaweynayaan, laakiinse ma sheegan karaan beesha Harti qayb ka mid ah. beesha Harti waxay leedahay maamul ay ku kalsoon yihiin, ay dhisteen 1998 kaasoo ah maamulka Puntland, taasoo ah hooyadii Soomaaliyeed. waxay u mahadcelinayaan maamulka Puntland oo isu taagay burburkii Soomaaliya inay Soomaaliya xasiloonideedii iyo nabadgelyadeedii soo celiyaan, iyagoo oo dhisay maamulada Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle iyo maamulka Koonfur Galbeed. intaba waxaa lagu dhisay casuurta Puntland. waxay aad uga mahadcelinayaan sida ay Soomaalinimada isugu taageen, sharafta leh maamulka Puntland ay ka tirsan yihiin. iminkana waxay ku boorinayaan inay Soomaali isku sii wadaan, iskuna siixayaan. beeshu waxay baaq u diraysaa ciidanka SNM ee jooga Tukaraq, Hadaftimo, gobolka Sool iyo Sanaag, taasoo ayan dadkaasi ma raaca burin iyo cagajugleyn ayan kaga mid noqon karin cid ayan shaqo isku lahayn. waxay u diraysaa maamulka SNM inuu ciidankaasi hadduu ciidan qaran yahayna ay geeyaan xadka Kenya iyo Soomaaliya ay leedahay si ay badda Soomaaliya u difaacaan. hadduu ciidan qabiil yahayna ay geeyaan dee qabiilkoodu meeshuu dego, laakiinse beesha Harti ayan marnaba wax cagajugleena ayan ku yeelan inay Soomaaliland noqdaan. beeshu waxay ku baaqaysaa gobolada Sool, Sanaag, Cayn, Maaqar iyo Taleex inay bisha shanaad shir isugu yimaadaan degmada Carooley, taas oo ay kaga tashanayaan sidii ay isugu baraarujin lahaayeen qaabkii cadawga wadanka looga saari lahaa iyo jamhadda SNM ku soo duushay. qodobka ugu dambeeya beeshu waxay cadeynaysaa in xubno ka mid ah beesha Harti oo ku sugan magaalada Hargeysa codsanayana in dastuur loo furo
waxay u sheegaysaa xubnahaas inay iskaga tanaasulaan arrintaa SNMna ayaan lahayn wax dastuurkeeduna uu yahay colaad xaasidnimo cabatin waana la dilay iyo xansuuq iyo diyaaradaana garaacay taana ayaan ciidana kula shuraakayn karayn wax loo furayaa beesha harti oo ay kaga mid noqonaysaa SNMna aanay jirin iyada oo beesha harti maamul iyo dastuur iyo nidaam jira ayaan kana mid noqon doonin dad iyagu u baahan in loo gurmado waxay beeshu ka digaysaa in ayaan isku dayin in khalkhalin lagu rido ummadda beesha harti oo aan wax dastuurana loo furi karin dastuur Soomaaliland ayaan aaminsanayn wax rajaan ayaan ka hayn kana mid noqon doonin haddii xilalka SNM oo dhan la siiyo beeshu ummadda Soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa in la ilaaliyo xasiloonida nabadgelyada iyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq waa Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeq Laascaanood